halkan oo ah xafiiska badhsaabka gobolka Sool waxa maanta shirkoodii toddobaadlaha ku yeeshay gudida nabadgelyada ee gobolka Sool shirkaasi oo intuu socdo lagaga hadlay arrimaha nabadgelyada iyo sidii loo xoojin lahaa nabadgelyada guud ahaan gobolka Sool iyo tan degmada Laascaanood shirkan intuu socday waxa ka soo baxay 8 qodob oo waaweyn kuwaasi oo lagu ilaalinayay nabadgelyada cidii tabisana talaabo sharci laga qaadi doono waxaana qodobadaasi u akhriyay warbaahinta xogayaha gobolka Sool sida odayaashu sheegeen gudida nabadgelyada oo dhan oo kulankan isugu timi xafiiska gudoomiyaha gobolka qarar waxa ka soo baxay qodobada khuseeya amniga gobolka Sool ama degmada Laascaanood lambar 1 qabashada qoriga qabashada hubka lambar 2 gaadiidka aan taarikada lahayn waa la qabanaya lambar 3 adkaynta nabadgelyada waqtiga kala guurka ee doorashadu dhacayso ilaa iyo maanta waa la qabanaya lambar 4 qoriga la qabto in la haynayo 3 bilood oo u dhiganta 9 casho qofkii aan ciidan ahayn ee lagu qabto tuute uu xidhan yahay sharciga ayaa la horkeynaya waana la maxkamadaynaya lambar 6 in aan qori la ogolayn magaalada dhexdeeda qofkii lagu arko waa dambiile waana la xidhayaa maxkamadda ayaana la horgeynaya waxaa jirta baabuur wareegta saacadaha dambe habeenkii shaqo bay hayaan waqti dambe habeenkii gaarigii socda ee aan la garanayn shaqada uu hayo aan la garanayn waa la qabanaya baabuurta beersolka waa laga fiiqaya in dhaweydna hawshaasi way socotay haddana taabagal ayay noqotay maanta laga bilaabo way dhaqan galayaan awaamiirtaasi dhankooda waxa halkaas ka hadlay maayirka degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Taarwale taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sool gaashaanle sare Axmed Cabdilaahi Cabdi iyo taliyaha aaga bari ee ciidanka qaranka Soomaaliland Sareeye Guuta Cali Barra Xuseen iyagoona adkeeyay qodobadaasi ay soo saareen gudida nabadgelyadu sheegayna cidii jabisa in laga qaadi doono talaabo sharci ah guud ahaan dadweynaha ku nool magaalada Laascaanood iyo gobolka Sool waxaan ka codsanaynaa in go'aamada ay nala hirgeliyaan qof walbina uu dhaga nuglaado qof walba markuu cilaamka gaadhana uu ku dhaqmo danteena ku jirta inay magaaladeenu noqoto magaalo xasiloon waa go'aan gudida gobolka soo baxay oo isu dhan insha Allah waanu fulaya eedii baa soo dhow doorashadii baa ina soo galaysa iyada lafteedooda ayaaba yar ka hadheen marka in amniga kor loo qaado la sii laabo iyadoo marka hore gobolka amnigiisu wanaagsanaa waa go'aan la isla qaatay waxaanu dadka ka codsanaynaa reer Laascaanood inay qoriga magaalada maraya qoriga inay haystaan waxaan markaa bulshada Soomaaliyeed wanaag badan ee khayr ka badan ee culimada iyo wax garadka iyo odayaasha iyo bulshada isugu jirta dhalinyarada iyo haweenba inay nabadgelyada adag ku nool iyadoo kuguma noola in laga wada qayb qaato badhsaabka gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire ayaa dhankiisa adkeeyay qodobadan ay soo saareen gudida nabadgelyada isagoo ugu baaqay bulshooyinka gobolka Sool inay fuliyaan qodobadan cidii fulin weydana talaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono nabadgelyada kor baa loo qaadayaa waxaan leenahay idinku naftiina badbaadiya dawladana gacan siiya insha Allah ciidamada amnigana la shaqeeya ciidanka amnigu wuxuu ka amran yihiin inay qodobadaas dhan fuliyaan way ku amran yihiin waana qabanayaan insha Allah cidii ka hortimaada ama qaadolaha noqoto ama shacabka la noqoto ama dad tuuta iska qaatay oo aan la aqoono calaamad kale sidan ha noqoto sharciga la horgeynaya dhamaantiin waxaan la farayaa inaad go'aamada fulisaan dhamaana dadka shacabka deegaanka ku nool inay nabadgelyada adkeeyaan ciidanka la shaqeeyaan amniga kor baa loo qaadayaa awalba gacanta lagu hayay iminkana wala si laban laabaya Liibaan qaran warbaahinta qaranka Soomaaliland